xildhibaan Cismaan Faarax Warsame xildhibaan Jiciir oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buuhoodle ayaa mushaharkiisa booyada biyaha ugu kala diray deegaanada hoos yimaada gobolada Togdheer iyo Buuhoodle. xildhibaankani oo ugu horeyntiiba ka hadlay wareejinta booyadahani biyaha ugu deeqay deegaanada hoos yimaada gobolada Buuhoodle iyo Togdheer ayaa sheegay in deegaanadaas ay haysato xaalad abaareed oo daran isla markaana ay u baahan yihiin biyaha, taasina ay keentay inuu u diro booyada biyaha. qaar ka mid ah cuqaasha iyo gudiyada deegaanada u dirayay biyaha oo kala wareegay xildhibaanka deeqdani biyaha ayaa uga mahadnaqay, sidoo kalena baaq u diray bulshada Somaliland, gudida abaaraha qaranka iyo xukuumadaba in si degdeg ah loo soo gaaro biyo iyo raashin. waxaana hadaladoodii ka mid ah soo maray dhul badan qayladhaan iga timi. waxaan go'aansaday inaan maanta diro 12 booyadood oo aan u kala dirayo 6 booyadood oo deegaanka Buuhoodle iyo 6 booyadood oo deegaanka Burca ee bariga. booyadahaas oo aan ugu talagalay kuwa Burco magaalooyinka kala ah Xayira, Xood, Ilkacadays, Warta Beyle, Inaf Madoobe iyo reero gaar oo qayladhaan xoog liiga timi oo dadkoodii halkan ay goobjoog ku yihiin oo iyaguna degan fadhi xun meel ku dhow ku gaadonsan. 6 booyadood waxaan u dirayaa deegaanka Burco ee degmada Burco. Buuhoodlena waxaan u dirayaa 6 booyadood oo kala biyaha kala geyn doona Hayo Bari, Fardalaaye iyo Qurca Dhalaan, iyo 3 booyadood oo ah deegaanka Qorolugud, ballida reeraha yaalla ee ku dhibaataysan Qabilaale, Dharkan Curdan iyo Arbaxaale. biyaha maanta waxaan ku wareejinayaa dadkii deegaanka, cuqaashii oo halkan ila joogta iyo odayaashii ayaan si dhab ugu wareejinayaa. booyadina oo kuwa dhabarkayga taagan qaybtood waa dhaansan tahay, inta kalena inay isla caawa baxaan rajaynayaa. booyadaha waxaan ugu talagalay magaalooyinka iyo meelaha reeraha xoolo soo gaari kari waayeen, sidaan u kala carifay ballida iyo tuulooyinkaaba. uu u diraayo burmadka ka qayb galaya ee dadka haraadan uu u diraayo waanu ka gudoonay insha Allah. annaguna dhulkii uu ugu talagalay ayaanu gaarsiin doonaa sida ugu dhasqaa badan leh. iminkaanu diraynaa gaari walba marka biyaha lagu shubo ayaanu diraynaa oo meeshuu u magacaabay ayaanu u diri doonaa insha Allah. waana ka gudoonay, waana soo gaarsiiyay, waana mahadsan yahay isaga iyo wixii hawlka gacan ka geystayba. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. sidii hore loo sheegay halkan waxaanu ka gudoomaynaa xildhibaan Cismaan Faarax Xaaji Axmed Jiciir 12 booyadood oo sidii uu sheegay lixina Buuhoodle tahay, lixina Saraar tahay. xildhibaanka waa uga mahad celinaynaa, annana waa gaarsiinaynaa deegaamadii ugu talagalay. halkan waxaanu baaq uga diraynaa dhammaan cid kasta oo awood u leh inay caawiso dadkooda, sida la sheegayo dadka waqtigiisii xalaa la soo sheegay horaantiisii. wabilaahi tawfiiq. bini'aadamku waxa la yiraahdaa ilaahay uma mahadnaqin haddaanu qofka ma garanaysaa danta ka gurmada u mahadnaqin. xildhibaankana waanu u mahad celinaynaa, biyahana waanu gaarsiinaynaa ciddii loogu talagalay. anigu Warta Beyle, hayrkii Warta Beylaanahay, waan gaarsiinayaa booyada haddii lahayd idmo. waxaana leeyahay dadka qurba joogta iyo guda qolqol joogtuba xaaladdu iminka way adkaatay. waa Abriil baa lagu jiraa 13keedii maanta, cirkana naxariis laguma hayo Ilaahay inuu qasiiye. waxaan leeyahay hal gurmado oo dadka hal loo gurmado. iyaga kala booyadaha la geynayo Arbaxaale, Qabilaale iyo Dharkan Curdan iyo deegaamada reeraha miyiga yaalla ku hayaamay Qurca Dhalaan iyo kuwa ku hayaamay Fardalaaye iyo Hayo Bari. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad, muqbaahiyaha caalamiga Somali News, magaalada Burco.